beesha degan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool xilligan awood ciidan ma u leeyihiin inay ciidanka Puntland iska soo saaraan sidoo kale awood ma u leeyihiin inay xilligan dagaal kale la galaan Puntland oo ay xoog isaga soo saaraan ciidanka Puntland xilli laga cabsi qabo inay Puntland qaadato go'aan la mid ah midkii Somaliland ee ahaa inay ku dagaalanto gacan ku haynta magaalada Laascaanood markaas oo uu dhacay dagaal socday 9 bilood oo khasaare xoogan geystay sidaad la socotaan dhawaan odayaasha dhaqanka gobolka Sool ayaa warbaahinta ka sheegay inaysan ka mid ahayn Puntland sidoo kalena aysan soo xulayn 17 xildhibaan ee ay Puntland ku lahaayeen markii uu soo baxay go'aanka ay gaareen odayaasha dhaqanka Laascaanood oo ay si cad u sheegeen inaysan Puntland ka mid ahayn waxaa bilowday in la isweydiiyo inay Puntland si nabad ah uga soo bixi doonto Laascaanood ayadoo uu dastuurka maamulka Puntland sheegayo inuu gobolka Sool ka mid yahay Puntland ayadoo ay durba siyaasiyiinta waaweyn ee Puntland sheegeen inaan la joogin xilligii uu gobolka Sool ka bixi lahaa Puntland oo aysan taasi macquul ahayn marna dhinaca kale siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland oo muddo dheer raadinayay inay mar Somaliland ka qabsadaan magaalada Laascaanood ayaa maanta haysta fursad ay muddo dheer oo 15 sano ah raadinayeen waxaana ay maanta Puntland gacanta ku haysaa magaalada Laascaanood iyo inta badan gobolka Sool oo ay 15 sano ka hor Somaliland ka qabsatay Puntland waxaana la aaminsan yahay inaysan Puntland ka bixi doonin gobolka Sool oo ay muddo ku dagaalamaysay gacan ku hayntiisa waxaana durba soo baxaya damaca Puntland ee ah inaysan mar dambe lumin gobolka Sool waxaana muuqata inay Puntland ku dagaalami doonto gacan ku haynta gobolkan haddaba sheekada ay dadka qaar isweydiinayaan ayaa ah Puntland ma ku dagaalami kartaa gobolka Sool xilligan marka laga hadlayo gobolka Sool xilligan waxaa ku sugan ciidanka Puntland kuwaas oo muddo halkaas kula dagaalamayay ciidanka Somaliland waana midda keentay walaaca ku saabsan inay Puntland ku fara adaygi doonto gacan ku haynta gobolka Sool sidoo kale hogaamiye ku-xigeenka maamulka Puntland oo ka soo jeeda magaalada Laascaanood ayaa xilligan u dagaalamaya inuusan dhaqan galin go'aankii ay gaareen odayaasha dhaqanka Khaatumo waxaana Axmed Karaash ka go'an inuu magaalada Laascaanood hoos geeyo magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland isagoo raba inuu sii joogo booskiisa madaxweyne ku-xigeenka Puntland dhinaca kalena waxaa soo baxay 24 saac ee la soo dhaafay inuu magaalada Garowe yaal saxiixa odayaasha dhaqanka Laascaanood kuwaas oo xulay qaar ka mid ah xildhibaanada ku metelaya Puntland walow ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha Laascaanood in laga been abuurtay oo shaabadoodii la xaday sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu doonayo inuu suuqa ka qorto 17 xildhibaan ee buuqa dhaliyay ayadoo Dani lagu eedeynayo inuu mar hore diyaarsaday xubnihii uu rabay walow ay mucaaradka Puntland sheegeen in loo baahan yahay in laga wada hadlo xubnahan oo uusan Dani oo kaliya suuqa ka qoran laakiinse taas bedelkeeda ay qaybsadaan mucaaradka Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dani taasoo muujinaysa aragtida taala magaalada Garowe ee caasimadda Puntland haddaba sidee u aragtaa daawade aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee faallada intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda u dhaxaysa Laascaanood iyo Garowe